Aabba Cabdi Ibraahin Aadan waa aabbo ku nool degmada Wajaale waa aabba haysta 3 carruur oo aragga naafa ka aabbahan ayaa ah aabba danyaro oo ku nool degmada Wajaale isla markaasina carruurtan uu dhalay nolol maalmeedka uga soo saara doobiilaha lagu maydho dharka oo ku yaala degmada Wajaale aabbahan ayaa dadka muxsiniinta khayrka jecel waxa uu bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed ugu baaqaya inay hor Ilaahay u soo caawiyaan isla markaasina ay ka soo gargaaraan Ilaahay baa gargaaray dhibta haysata aabbahani oo hadlay telefishinka caalamiga badda cas 24 TV ayaa waxa uu sheegay in haba yaraatee aabahani ayaa dadka muslimiinta khayrka jecel waxa ugu baaqay in hor Ilaahay u soo caawiyaan isla markaasina ay ka soo caawiyaan dhibaatada haysata waxana uu yiri aabba dhalay nimankaasi indhaha ka naafada ah waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka meel ay joogto aniga waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka meel ay joogto waxaan ka codsanayaa inay soo gargaaraan nimankaasi aan oo indhahooga aanan u haynin meel aan ku geeyo meel alla meel aan waxaan ku geeyo oo nimankaasi oo halkan joogno lagu yidhi waxba lagama qaban karayo indhahooga waxaan doonayaa ummadda islaamka wixii aan meel ku geyn lahaa inaad soo gargaartaan maadaama lagu jiro bishii barakeysnayd waxaan naga codsanayaa rag iyo dumar dadka islaamka dibad iyo gudo waxaan naga codsanayaa inaad ii gargaartaan waxaan ii sheegayaa hoyga aan ku jira waxa weeye waa cooshad yar oo ku daasa markaa waxaan naga codsanayaa xilli roobaad ayaa lagu jiraa waxaan naga codsanayaa inaad waxa weeye gurina waxaan naga codsanayaa inaad waxaan naga codsanayaa ruudigaas iga gargaartaan dhibaatada haysta idinkoo aad aragtaan nimanka indhaha naafada waxaan u hayaa waxaan shaqadeeduna waxa weeye doobigaasi dharkaasi aan uga soo saaraa raashinka ayaan uga soo saaraa wax masariiftooda kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay dadka muxsiniinta ugu baaqay in hor Ilaahay u soo gargaaraan aabbahan danyarta ee ku nool degmada Wajaale Sheekh Cabdi Xuseen oo kamid ah culimada magaalada Wajaale waxaana uu dadka khayrka jecel ugu baaqay inay maadaama lagu jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan inay khayrka shaqeystaan hor Ilaahay u soo caawiyaan aabbahan haysta 3 carruur ee aragga naafada ka isla markaasina waxa uu sheegay Sheekh Cabdi Xuseen in haba yaraatee aabbahani guriga u galayihiin mid ka samaysan karatoon iyo baco soo sheegay Cabdi Aadan waxa ka xanuunsanaysa marka waxa weyn carruurta yar oo ku soo dhashay marka waxa weyn dhalaan saaw tilmaamayna dalka gudihiisa leeyay marka waxba looga qaban karo waa ninka miskiinka shaqadiisuna waxay tahay marka waa doobiga waxa ka xanuunsanaya waa 3 carruur labada halkan joogiya mid kale inankii kale roonaan ka xanuunsanaya shaqadiisa aan sheegnay marka waa doobiga doobigu ka shaqeynayay isagii baa xanuunsaday inteerada carruurta marka waxa weyn masariifta uga soo saaray isagii baa imka xanuunsanay oo waxba meeri karaynin oo waxa weyn shaqadina ka fadhiistay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu faray inaan waxa weyn marka isku naxariisano irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu u naxariisto dadka marka waxa ciid dhulka joogta waxa idin naxariisan doontaa Allah subhanahu wa ta'ala marka waxa weyn samada jira maadaama walaalayaal marka waxa weyn ku jirno bishii Ramadaan ee barakada badnayd khayrka badnayd aamaashana la milaabayay qofku marka waxa weyn riyaalka uu ku bixiyo halkaasi walaalkii uu ku caawiyo muslimka ee dhibaataysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa uu liminaabaya soo Ilaahay marka horeba liminaabaya sadaqada oo marka aad caafar badan iyo marka liminaab badan uu siinayay haddana bishii waqtigii la bixin lahaa mowsimkii wax la bixin lahaa waa waqtigani waxa weyn Ramadaanta inaan marka waxa weyn ka faa'iideysano oo marka waxa weyn waxaynu adduun haynaan u awoodi karnaan ku tarno muslim dhamaantii inta waliba marka af Soomaaliya ku hadashay garanaysa marka luqadan ku hadlayno waxa loo baahan yahay marka waxa weyn inaan walaalkeena caawino inuu gargaarno waxa weeyaan jilada sale iska dhibaataysan sida uu tilmaamay guriga uu ku jiraana marka waxa weeyaan waa meesha uu sheegay cooshad yar oo noqon bacay ka samaysan karatoon roobka marka way ku soo deynaysaa oo waxa weeyaan marka roob biyo ka Khadar Cabdi telefishinka caalamiga badda cas 24 TV degmo ganacsiyeedka Wajaale gobolka Gabiley